السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan. waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 30 bisha Agoosto sanadka 2025. waxbaa dhacay xalay Gaza waxbaa ka dhacay. saakay salaada subax markaan soo kacay salaada markaan tukadaan duubaya barnaamijka markaan salaada soo kacay waan fiiriyay waxa ka socday Gaza waa la yaab. hadda xilli salaad subax ayaan duubaya waxa dhacay wax cajiib ah. ciidanka Israa'iil kuwa la dilay kuwa la dhaawacay iyo kuwa la leeyahay way maqan yihiin oo waxa loo malaynayaa in nolosha lagu watay. sheeko la yaab laha dhacday. marka wararkaasaan idiin soo koobayaa. barnaamijkan waa barnaamij gaara waaye ma aha keeni subaxnimo waa noo soo socdaa waqtigiisii ayaan soo geli doonaa. kan waa mid special ah oo wixii xalay dhacay aan idiin soo ururinayo warbaahintu waxay ka qoreen wax la yaab laha dhacay xalay. barnaamijkii habeennimo ayaan waxaan idinkugu soo gudbiyay. inta daawatay way daawatay inta aan daawanna way daawan doonaan. waa barnaamijkayga xalay habeennimo Al-Jazeera oo ka sheekeynaysa meelaha nimankanu ay soo galeen. الزيتون iyo Jabaaliya qariidadii way la socoteen. qariidada halkan iyo halkana laga soo galay. si fiican u sharaxnay dagaalka inuu bilowday meelaha ka soo weerartageen. Abu Ubayda oo hanjabayana waa soo saarnay. u fiirsada way ka shalayn doonaan weeyr noloshaan ku qaban doonaa. waa xalay barnaamijkayga xalay waa ma dhicin waxa kana hadda ka hadlayo. noloshaan waa ku qaban doonaa weeyr haddii Allah idmo. iyagana waxaan ka dhigi doonaa kuwa meydadkooda iyo waxooda jiita oo la carara. xalay saasaan barnaamijka ku samaynay inuu dagaalkii Israa'iiliyada ku dhawaaqday oo ay tiri dagaalkii noo bilowday Gaza aan qabsanayna. iyo nimankii Abu Ubayda iyo raggii soo hanjabay halkaasay noo joogtay. xalay markaan seexday saakay salaadii subax fiiri markaan maagay waa yaabay waxa meesha ka dhacay. Al-Jazeera breaking news ka hadlayso khubaro wareysanayso sidee wuxuu jiraan nimanku xagee aaday wax la yaab loo. intaana warbixinta idiin galin horta rasaastii iyo wixii telefishinka Al-Jazeera uu duubayay oo loo soo diray qayb ka mid ah horta aan idin tus. marka waxaan bilaabaynaa marka wararkii laga qoray sheekadan ayaan rabaa barnaamijkeena intaanu ku koobayay. haddaba marka ugu horeysa waxaynu ku hormaraynaa telefishinka Al-Jazeera wuxuu leeyahay askari ayay sheegteen in laga dilay 11 kalena laga dhaawacay oo dhaawacoodu uu halis yahay. waxaa sidoo kale la sheegayaa in la waayay 4 ka mid ah ciidankooda kadib markii weerar gaadmaha muqaawamadu xalay ay ku qaadeen Gaza meeshii ay joogeen ciidanka Israa'iil ay soo galeen. haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa waxay leeyihiin askari ayaa la dilay. askar kale oo gaaraysa 11 oo dhaawacoodu uu halis yahay ayaa iyaguna la soo sheegayaa. waxaa la yaab leeyihiin warbaahintu inay maqan yihiin 4 ka mid ah ciidanka Israa'iil kuwaasoo la sheegay in laga baqayo inay gacanta u galeen muqaawamada. warbaahinta Israa'iil waxay sidoo kale xalay ilaa saaki ka hadlayaan xadadkan ama dhacdada meesha ka dhacday inay ahayd tii ugu weyneyd marka laga soo tago maalintii duufaan al-Aqsa ay dhacday 23 sanadkii 2023 7 Oktoobar. haddaba waxaa la sheegay weerarkan inuu ka dhacay xaafadda la yiraahdo Az-Zaytun iyo Xay Sabra oo ka tirsan Gaza. haddaba howlgalkan gaadmada weerarka waxaa soo qaaday
kooxaha muqaawamada waxay la beegsadeen goobtii ay ku sugnaayeen ciidanka Israa'iiliyiinta. haddaba ciidanka Israa'iil ayaa waxa ay sameynayaan sida warbaahintoodu ay sheegeen borotokoolka la yiraahdo Hannibal, kaasoo ah askariga in la dilo intii uu ku dhici lahaa gacanta cadawga. haddaba ciidamada waxay dalbadeen diyaaradaha helicopteriska ah. waxaa la sheegay in ay markaa rasaas xoog leh iska furayeen. waxay sheegeen in la weeraray saldhig ay ku sugnaayeen guutada 162 iyo guutada 401. waxaana la sheegay weerarku inuu ahaa mid cilmiyeysan oo ay soo qaadeen muqaawamadu. ciidamadii soo galay xay Zaytuun ee shalay sheegay inay dagaalka bilaabeen oo ay weerarayaan Gaza ayaa afarta dhinac looga yimid markaasaa dabka la saaray. haddaba waxaa la sheegayaa inay la kulmeen khasaarihii ugu weynaa abid tan iyo markii laga soo tago 2023. marka taasu marka waa warbixin soo koobaysa siday wax u dhaceen. marka maxaa dhacay? waxyaabaha laga qoray markaan idin soo koobo waxaa ka mid ah warbaahinta Israa'iil kaliya hadlaysa. Al-Qassam waqti dambe oo hadda dhow ah waqtiga aan duubayo ayay fariin soo dhigtay. fariintaas waxay muujinaysay askari ay jiidayaan isagoo nool oo dhulka saas u jiifa oo maaragtay jilbaha saas ugu jiifa oo ay ku dhagan yihiin oo sii jiidayaan askari Yahuudiya oo gar leh. waxay korkiisa ku soo qoreen horay waxaan idin xusuusinaynaa horay waxaan idinkugu sheegnay haddaana soo aadaan wax dhintay iyo waxaynu gacanta ku dhignay inaad noqonaysaan. fariintaas kaliya soo direen. ilaa hadda marka tafaasiil inay afarta maqan iyagu gacanta ku hayaan iyo in kale weli Al-Qassam iyagu kamaysan hadlin. waxyaabaha la yaab kale ee laga qorayo waxaa ka mid ah nimanka weerarka soo qaaday waxaa la leeyahay waxay wateen dareyska ciidanka Israa'iil. waxay sheegayaan warbaahintoodu waxay kaloo wateen bahallada indhaha habeenkii wax lagu arko oo kiyaalayaasha habeenkii wax lagu arko oo ciidanku ay isticmaalaan qalab ciidan oo dhammaystiran ay wateen. dooda marka waxay ka dhacday nimanka kano muqaawamada ah xagee waxa kan ka keeneen. waa easy. dadkii falanqaynaya kulli waxay isku raaceen nimankan 7 Oktoobar 2023 markii ay Israa'iil galeen xerooyin military dhan ay soo urursadeen wixii yaalay markaasay Gaza la soo galeen. hub hadhihin muxuu ahaa labiska ciidanka hadhihin bahallada oo kiyaalayaasha la gashado niman caadi ma. nimankii marka habeenkii xalay ahaa taariikha lagu dhigay taariikh way yaaban yihiin afkay gacanta saarteen. afartii askari waa la la'yahay. fariinta kaliya la soo qoray la leeyahay ma soo horay idinkuguma sheegin. haddaan soo aadaan waxaan dilnay waxaan wadano inaan ka dhigayno macnaheeda waxbaa ku jira waa wadanay waaye laakiin weli cadayntii lama hayo. hadda aan idin la hadlayo inuu hadda war soo baxa laga yaabaa Al-Qassam war soo saarto waa laga yaabaa barnaamijyada dambe si fiican ugu faahfaahin doonaa. marka xalay nimankii Abu Ubayda u dhaaranayay barnaamijkayga xalay hadaa fiirsataan horta waa inta fiirsato ku maadsayn inta aan fiirsan waxa ku jirtay khariidadii la sharaxayay wixii oo dhan ku jiray. waa marka waxay ku tilmaameen weerarkii aanu la yaabnay waa la yaabnay. haddaba marka waxyaabihii ugu dambeeyay marka sheekooyinka soo kordhay ee laga qoray haddaan mar kale idin dulmaro waxaa leeyahay ciidamada Israa'iil waxay xalay markii la soo weeraray ku waasheen inay ridaan bambooyinka iftiinka bixiya iyagoo xay Zaytuun oo dhan ka dhigay iftiin si ay cidda soo weerartay ula diriraan. dhanka kale waxaa la sheegay in lagu amray ciidanka markii dagaalku uu qabsaday inay dib uga soo baxaan meelihii ay galeen oo xay Zaytuun way carareen. dhanka kale waxaa la sheegayaa wararka soo baxay waxay sheegayaan Israa'iil waxay sidoo kale mamnuucday in la faafiyo wararka ku saabsan afarta askari ee la la'yahay ee lagu waayay xay Zaytuun. warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin cadaadisana la saaraya ku saabsan inaynan xog badan ka sheegin afarta askari ee la la'yahay.
dhanka kale waxaa leeyahay ciidanka Israa'iil waxay isticmaalayaan oo amar u haystaan borotokoolka la yiraahdo Hannibal kaasoo ah askariga marka uu gacanta cadawga galo in maca askariga iyo cidda wadataba la isku dilo waa shuruuc kamid ah shuruucda ay ciidanka Israa'iil isticmaalayaan laakiin hadda waxaa la leeyahay maxaa la dilaaba afartii waa la la'yahay meelay jaan iyo cirib dhigeen wararka kale soo kordhaya waxay sheegayaan in saakay aroortii ciidanka Israa'iil ay bilaabeen inay weeraro cirka ah ku qaadaan deegaanadii dagaalku uu ka dhacay Xayu Sabra iyo Zaytuun halkaas oo ay weeraro ku qaadayaan waxay soo kale la sheegayaa in ciidanka Israa'iil ay sidoo kale dhulka ka soo ridayaan madaafiic ay dhulka ka soo garaacayaan iyo taangiyo ay ku garaacayaan goobaha weerarku uu ka dhacay sida deegaanka la yiraahdo mandiqada Abu Iskandar oo ku taala waqooyiga xaafadda la yiraahdo Gaza oo ah meesha dagaalka culus uu ka dhacay موجودة marka Hannibal la yiraahdo Hannibalka marka waxa waaye protocol ciidanka ay ku shaqeeyaan askari hadiiba gacanta uu u galo cadawga meesha uu ku jiro iyo askartii la socotay in la isla dilo waa shuruucdoodii kamid tahay gaaladan ma naxayaan midda kale hadda waxa lagu leeyahay Hannibalkii haba la isticmaalay nimanka lama hayo qalab ay wateen jira markiiba qalabkii waa la damiyay meel uu ka baxay lama yaqaan oo lagu raadin lahaa warnimanku xagee aadeen marka dagaalkii shalay iyaga ku dhawaaqay shalay barnaamijyadeeda hadda dib u raacdid waxay dhaheen meesha waa goob dagaal dadku ay isaga baxeen haddana kii xalay markaan akhrinayay waxay soo saareen war ah dagaalkii waa bilownay laba aagan ka soo galnay waa qabsanaynaa war ma ka joogtaan war meeshan ما laga joogo mar hore abaanduulihii ciidanka ka digay generaaladii waa ka digeen waa laga diiday Netanyahu kooxdiisa gala ay ku hayaan hadda marka waxa leeyahay saacada kadib hadii al-Qassam ay shaaciso afartii in iyadu gacanta ku dhigtay ayadoo awalba dadkii la haystay loo qaylinayay oo dagaal mar rabno ay ku hayeen afar kala hadii gacanta lagu dhigo Israa'iil gudaheeda maxaa ka dhacaya laba loo kala qaybsamaya Ben Gvir iyo Smotrich iyo nimanka la dilo xataa waxaan hayna aan ku dhufano ay dhahayaan aliiri haye nimankii dadka kalena way buuqayaan mucaaradka iyaga intay isku darsoomaan ayaa wadanku gilgilan doona Israa'iil xukuumadeeda iyo wixii dhan oreeri doonta marka sheeko sahlan ma aha hurdadii ka wada tooseen kulligood afarta askari oo la qabsaday maxay wax macluumaad ciidanku inay bixiyaan way diideen arqaaba ku soo rogeen ilaalina lagu soo rogay nimankan muxuu ahaa meediyaha ma ka hadli kartaan warar hoose ma heli kartaa waxa socda hadaba marka xalay waxa dhacay intaynu kala maqnayn xaalku halkaas uu maraya nimankii muqaawamada ahaa waa feesteynayaan si kale uma taqaanid waxa lagu leeyahay waxa ay la soo baxeen waa la yaabay ugu yaraan 400 askari ayu mid sarkaal wuxuu yiri 400 waa dhamaayeen nimanka soo weeraray oo soo taa hore loo lahaa al-Qassam waa la baabiyay nimankii maaratay Hamas ciidankeedii waa soo tiila lahaa muqaawamadii waa eber war meel ka imaan ma ayagoo nimankii habaysanaa intay u yimaadeen nagta ka saareen marka sheekadu marka halkaas ay maraysaa warkan culus maaratay saakay lagu waabariistay ayaan idin la dhaaf waay saakay xaaladu caadi ma xalay wixii dhacay waa la yaabay afka gacanta saartay yahuudi waa yaabay wata xalay Abu Ubayda markasta uu ku celinay aan idin akhri halkan aan kaga soo daay marka hawshu halkaas ay maraysaa barnaamijkanu wuxuu ahaa barnaamij gaar ah waa aragkii xalay dhacay feestadii ayaanu maaratay halkan idinkaga soo gudbinay marka hadii alla idmo barnaamijyadeeni kale sidoo kale u socon doonaan saacada kadib waxaan soo gelin doonaa barnaamijkeygii subaxnimo kii galabnimo kii habeenimo way socon doonaan kan waa special waa gaar waa hadiyad waay waa maadsantiin asxaabay meel kastoo aad joogtaan adinkuna fakar iyo aragti noo soo qora fadlan aad leedihiin muxuu ku dhammaan doonaa dagaalkan nimankan haddeeba ka bixidii carar la sheegay inay ciidanka ka baxsadaan adinku maxay idin la tahay maxaa dhici doona afarta askari xagee ku dambayn doonaan
marka waa arki doonaa wixii laga soo saaro waa idiin faahfaahin doonaa khariidadii aljaziira iyo wixii oo dhanna waa soo socdaan barnaamijyada dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa barnaamijkaygii gaarka ahaa saakay intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa asxaabay meel kastoo aad joogtaan laagareeya oo sheergareeya barnaamijka ha iloobinina haddii sidoo kale aad cusub tahay subscribe ha ka iloobin youtube-ka facebookana follow garay asxaabay meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo